waxaan arkaynaa in mucaaradkii uu kusoo qulqulaya magaalada muqdisho oo runtii shirweynena ay runtii maanta ku qabsadeen magaalada muqdisho mawlaca macalin nuur laakiin dhowr su'aalood ayaa ummadda Soomaaliyeed isweydiinaysaa waa maxay ulajeedada iyo runtii shirarka ballaaran ay qabsanayaan mucaaradka mar haddii aysan ulajeedo midaysan ama qorshe cad aysan runtii waxa waaye aysan la imaanin mar haddii ay doorashadii dadbaneed ay weli ku taagan yihiin ummadda Soomaaliyeedna ay doonayaan ama shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna ay doonayaan doorasho qof iyo cod ah dowladdii ayaa leh maanta waxaan runtii diyaar la nahay in aan doorasho qof iyo cod ah aadno iyadoo mucaaradkana weli ay leeyihiin waxaan doonaynaa doorasho dadban iyo teendadii marka dhowr su'aalood ayaa shacabka magaalada iyo ummadda Soomaaliyeedba ka dhex guuxaya war waxa hadda qorshaha ay wadaan oo ah runtii wax hore loo soo tijaabiyay ama runtii waxa waaye dad meeshii ka dhex muuqda oo runtii ah dad hore ay u soo tijaabiyeen ummadda Soomaaliyeed hadday noqoto Sheekh Shariif hadday noqoto Farmaajo hadday noqoto Xasan Cali Khayre iyo hadday noqoto Cumar Cabdirashiid hadday noqoto Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo rag badan oo runtii hadda aan magacooda halkan ku soo koobi karin kamid ah mucaaradka maanta ku shiray magaalada Muqdisho ee mawlaca waxaan maqlay hore u maqlay badbaado qaran shirkooda ugu horeysay waxay ku qabsadeen mawlaca waxaa la yaab leh laakiinse in maanta waxa waaye badbaado qaran tuu wax la yiraahdo ay la yimaadeen in shirkiina ay ku qabsadeen mawlaci macalin nuur oo runtii waxaa lala yaabay in mataqaanaa farsamo hore loo soo tijaabiyey qaab hore loo soo tijaabiyey in waxa waaye mataqaanaa aysan suurtagelin aysan welina aysan la imaanin wax ajenda cad oo runtii ay runtii doonayaan inay ummadda Soomaaliyeed usoo bandhigaan ilaa hadda waxa waaye war cad kama hayno waa ay yimaadeen magaalada Muqdisho waa ay kulmeen waa ay shireen laakiin su'aasha waxay tahay dad badan ka dhex guuxaysa maxay ka bedeli karaan dadkan magaalada Muqdisho markii shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Muqdisho markii 4 sano ka hor halkii aan joognay iyo maanta halka aan taaganahay ayaa inoo fiican markii isweydiiyaan 4 sano ka hor jidadkii ka xiraa 4 sano ka hor qaraxyadii faraha badnaa 4 sano ka hor dhibaatadii ku socotay magaalada Muqdisho iyo amni darradii iyo xasilooni la'aantii iyo baahidii faraha badneed iyo maanta yaa inoo dhaamo waay marka shacabka laftirkooda waa ay isweydiinayaan su'aalahaas tood runtii ummad badan aan la hadalnay ummad badan aan mikrofoonka la dhex marnay waxa ay runtii inoo sheegeen in ay maanta waxa waa doonayaan inay dib u laabtaan markii dadka hadda qorshaha runtii waxa waa shirarka wada ee mucaaradka ah inaguma dhex muuqdaan ay leeyihiin dad maanta waxa waa ajenda cad wata ama dad waxa waa wax ka bedeli kara siyaasadda maanta taagan laakiin waxaan aragnaa in waxa waa mataqaanaa wax la yiraahdo waxa waaye farsamadii hore iyo qaabkii hore iyo mucaaradnimadii hore weli meesha ay taagan tahay laakiin su'aalo badan oo la isweydiiyay jawaabtoodii ummadda Soomaaliyeed hadda dhageysanaysa iyo ummad kale waxa waa dhageysan doonto ayaan u bandhigaynaa waa leenahay are we better off dhagaxadii shalay magaalada ku go'naa ma inooga duwan tahay maanta waxa waa in mataqaanaa mucaaradka hadda jooga ee runtii waxa waa qorshe cad iyagoo aan haysan inay weli ku andacoonayaan waxa waa qaabkii hore ayaan ku soconaynaa oo isbedel hadda ma doonayno runtii annaga waxa waaye wax shaqaan ku leenahay mara mucaaradna kuma nihin oo runtii maanta af dowladeena kuma hadalno laakiinse waxa ummadda Soomaaliyeed iyo aragtidooda ka turjinaa mar walba ummadda Soomaaliyeed iyo aragtidooda maxay leedahay waa marka waxay leedahay maanta waxaan inoo dhaama in mataqaanaa dhagaxyadii iyo dhibaatadii iyo 4 sano waxa waa amni darradiina haysatay nolol xumadiina haysatay inaan maanta si xor dariiqadeena ku mari karno in qaraxyadii naga yaraaday in magaaladii waxa waa isu wada furantay in waxa ummadda Soomaaliyeed ay tahriibkii dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed maanta qaxay iyo tahriibkii inay ka yaraatay in goboladii Soomaaliya meel kastoo dadkii ay isaga imaanayaan oo ay leeyihiin waxa waaye caasimadii dalka ayaan waxa waa nolol u doonanaynaa oo aan shaqo u doonanaynaa marka su'aashu waxay tahay ragga hadda tartamaya ee doonaya kursiga siyaasadeed farsamadii hore waxa waa mataqaanaa wax lagu kala dooran jirin iyo qaabkii hore wax ku wada weli wax la yaab runtii kuma sii fogaanayo laakiin waxa waaye dadka hadda tartamaya ama dadka doonaya damaca siyaasadeed uu ku jiro waxa inoo cad in ay yihiin dad runtii waxa waa dawladda shisheeye ee dabada ka riixayaan sidoo ra'iisul wasaaraha inoo sheegay malaayiin dollar in lagu bixiyay sida waxa waa carqaladeen iyo waxa waa amni darro looga sameyn lahaa magaalada Muqdisho ragga la soo adeegsanayna waa rag maanta waxa waaye mataqaanaa magaaladaas runtii aqoon fiican u leh deegaan ahaan hadday noqoto waxa waaye mataqaanaa maamul ahaan hadday noqoto inay soo hogaamiyaan dalkan laakiinse waxa waaye maanta waxaa caddaatay in waxa waa shalana magaalada lagu burburin jiray dalka lagu burburin jiray maantana waxa waaye in lagu burburinayo waxaa cad in imaaraadka wax badanna waa ka hadlay
inay ahaayeen kuwii soo burburiyey Soomaaliya, Yemen, Suudaan, Liibiya, Suuriya, dalal fara badan oo Afrikaan ah dhibaato badan u geystay, dalal badan oo Latin America dekadahoodii soo dhibaateeyay, dalal badan oo dekadahoodii waxa waaye ay ka soo oriyeen oo ay Djibouti ugu horeyso oo Peru ugu horeyso oo ay dalal fara badan oo Latin America laga soo oriyay DP World nimanka la yiraahdo. marka waxa waaye nimanka hadda waxa waaye ku shiraayo magaalada Muqdisho waa niman waxa waaye laga soo abaabulay Imaaraadka sida aad la socotaan maantadan aad la hadlaayo Axmed Maxamed Islaan iyo Saciid Cabdullaahi Hadani waxa looga yeeray magaalada Imaaraadka, waxa looga yeeray magaalada Dubai, halkaas oo shir waxa waaye runtii aan caadi ahaan loogu qabtay lacag aad u fara badan waxa waaye mataqaana laga soo daabulayo. marka waxa su'aasha ay tahay in mar walba waxa waaye dalkeeni lagu burburiyo dad iyaga dalka waxa waaye runtii aan u danqanin dal aan dal iyo dal kale ahayn haba yaraatee waxa waaye mataqaana ummadda Soomaaliyeed ee maanta waxa waaye lacag ku doorsanayo. shalay ayaa Ethiopia nagu dhibaataysay oo hogaamiye kooxeedii hubka inuu kala dhiibaysay. shalay ayaa waxa waaye dalka Kenya waxa waaye Bufferson iyo dalkiina waxa waaye deegaankiina uu baabi'inayay. marka maanta waxa waaye in Imaaraadka waxa waaye burbur ba'an uu ka wado magaalada Muqdisho iyo gibi ahaanba dalka Soomaaliya wax laga xumaado. wax laga xumaado markaan leeyahay waxay tahay waa wax cad in maanta waxa waaye ra'iisul wasaarihii uu ku celceliyay in Imaaraadka ay dhibaateynayso Soomaaliya in badan waxa waaye ay ku celceliyeen. laakiin hadda qorshaha cad oo socda waxay tahay in ay dawladda ka tashan doonto saaxiibtinimada Imaaraadka. su'aalo badan la iska weydiin doono markii Imaaraadka hadduu intaas oo sano waxa uu dhibaateynayay lacag yar uu ku siiyo ciidamadaadii iyo qalabkaagii iyo taageero ciidan iyo taageero waxa waaye dawladeed uu ku siinayo, laakiinse burburka uu dalka ku wado iyo taageerada uu ku siinayo waa in la kala doortaa. marka jawaabtaas waxaan ka sugaynaa dawladda laftarkeeda inay saaxiibkood waxa waaye mataqaanaa Imaaraadka uu yahay iyo inuu yahay cadowgooda ummadda Soomaaliyeedna waxa waaye dalkooda iyo dadkoodii uu baabi'inayo danihiisa isagoo fiirsanaya. marka kuma sii fogaanayo laakiinse waxa waan idin ka codsanayaa dhawaqan inaad meel fog aad gaarsiisaan in runtii waxa waaye mucaaradka maanta ku shiraya magaalada Muqdisho in aysan haba yaraatee wax dana aysan inoo haynin waxaan ka wadaa markii ma ahan dad maskaxdooda iyo caqligoodii ka socda, waa dad waxa waaye mataqaanaa lagu kala furfuraya dalkaagii lacag runtii waxa waaye aan caadi ahayn la soo wada siiyey. nin walbana dhabarka laga soo taabtay la yiri adiga ayaa musharax ah, adiga ayaa waxa waaye runtii ah ninka waxa waaye nagasti Xasan Sheekh bedeli doono. war anaga Xasan Sheekh ninka bedelaya waa nin Soomaali hore laakiin waxa waaye nin dalkiisa u danqanayo inuu noqdo ayaan doonaynaa. marka waxa waaye meel fog balgaarsiya ayaan idin leeyahay.